السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك كسو دوادا muuqaalkeena maanta waxaanu ku falanqeyn doonaa goosgooskii labaad ee laga soo bandhigay qaybta 183 ee taxanii gundhigii Cusmaan fadlan hadii janaalka cusub tahay subscribe noo saar hore hadii nala joogto muuqaalkeena la garay daawada aad iyo aad u mahadsantahay inteenan guda galin muuqaalka ka horna ku saliya xabiibkeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam hadeerna si toos ah inuu u guda galno muuqaalkeena maanta goosgooska waxa uu mid aad iyo aad u xiiso badan inta idin ka soo daahina ka raali noqdo goosgooskana waxa uu ku bilaabmaya markaasi Cusmaan oo dib u soo celinaya baala oo markaasi la kulmaya qabiilkiisii kuna kulmaya markaasi duurka meesha ka dhigtay markaasi deegaanka halkaasina waxa ku sugnaayeen markaasi hablaha kaleeto waxaana aad ugu farxaysa markaasi markii aragto baala gabadha lagu magacaabo Faadima iyadoona hooyo dheeso isla markaasna ay celin weynayso soo cararaysa arkayna dhamaantoodana laabta ay markaasi wada gelinayaan intaas kadibna waxaanu arkaynaa markaasi ninkii jarkutay ahaa oo qeylinayo isla mar ahaantaasna hadaladiisu ay kamid ahaayeen cunadii waa la diyaariyay ugu dambeyn waxaana na soo gaartay oo aynu maraynaa markaasi boqoradii 12 bilood cid kalena ma ahan ayuu leeyahay 12 bilood boqorkoodana waxa uu leeyahay markaasi waa Ramadaan caawo kale miyaa la seexan kara ayuu leeyahay iyagoona u dabaaldegaya markaasi bisha Ramadaan ayaanu arkaynaa waa inaan soo dhaweynaa caawo kale hurdo ma jirto ayuu leeyahay dadka dhanna cunada ay inoo diyaarinayaan sidoo kale tana waynu cunteen doonaa haduu Ilaahay idmaayo intaas kadibna Cusmaan oo waxaanu arkaynaa markaasi ilmihiisa u qudbeynaya hadaladiisana waxa kamid ahaa markaasi caruurteeda soonku ma ahan ayuu leeyahay markaasi in cunada laga go'o keliyate ee waa inaanu dareenaa markaasi xaaladda ay ku sugan yihiin dadka aan waxba haysan ee gaajada qofka faqiirka ah iyo qofka xoolaha haysta soonka waa ay u wada siman yihiin labaduna gaajadu waa ay wada dareemayaan ayuu leeyahay marka xaaladda qofka gaajeysan uu dareemayo ayaa la rabaa markaasi anaga inaan dareeno sidoo kale tan waxaynu arkaynaa markaasi baala oo weerar ku soo qaadaysa naagtii Sofia lagu magacaabayay iyadoona wiilkeeda cala adin soo wadata sidoo kalena ciidan soo diyaarsatay ay wadada soo galaysa waxayna diyaar u tahay markaasi inay ka siisa naagtii Sofia lagu magacaabayay gacantan ay ku soo dhigto kana soo dhacsata markaasi gabadheedii ninka boosdag lagu magacaabo maxaad ku taqaanaan baala ayuu aaraya ugu dambeyn baala waxay weerar ku soo qaaday Sofia gacanta ayayna ku dhigtay intaas kadibna baala waxa ay dhehaysaa cidna gacanteeda kaama badbaadin karto Sofia maanta laga bilaabo waad hadlaysaa waadna ii sheegaysaa gabadheeda goobta ay ku sugan tahay caafimaadkaagana wuxuu ku jiraa inaad ii sheegto goobta ay ku sugan tahay gabadheeda intaas kadibna qaabkii iyada ay ku sameeyso bay ku sameynaysaa xarig bay ku soo xiraysaa dhiiqadayna ku soo jiidaysaa baalana halka ay faraskeeda iska saaran tahay marka waxa la dhihi karaa marka waa isla tabtii buu ku sameynaysaa oo iyada lagu sameeyay ninka boostada lagu magacaabo waxyaabo dhacdo kale ku dheereeya marka waa u aaraya goorba sidaas ma leeysa adiga laftiga marka daawanaydo halka Sofia aynu arkeyno iyada oo dheeyso markaasi marnaba baala ma ogaanaysa gabadhaada meesha ay ku sugan tahay anigana ku sheegi ma ay leedahay habarteeda ka taa waxa doonta ayaad igu sameyn kartaa laakiin ma sheegay ay leedahay markaasi goobta ay gabadhaada ku sugan tahay Sofia waxay diyaar u tahay markaasi inay ku adkaysato inaysan marnaba sheegin markaasi goobta ay ku sugan tahay gabadha baala isla mar ahaantaasina taasoo ah waxa kaliya iyada ay ku badbaadi karta mar walba waxayna sidoo kale ogtahay mar walba oo ay qariso gabadhaas oo aysan sheegin inay tahay markaasi midaasi mid iyada ka dhigaysa inay sii noolaato oo aan la dili karin marnaba marka sidaas dadteeda inay sheegto iyada marnaba ma dhaceyso oo waxa ay doonaysaa markaasi inay ku adkayso waxa kaliya hadda ay loogu bootay karo Sofia oo la dhihi karo gabadha sheegay sidaas lagu sameeyay waa lagu dilaana waa geerido keliyate iyadana waxay ogtaa markaas hadii la dilo inaysan baala iyo Cusmaan aysan ogaanaynin markaas ilmahooda meesha ay ka heli lahaayeen marka way ugu adkaysanaysaa iyada gar u leh marka sidaas darteeda waxay leedahay marnaba sheegi maayo alhaasil adiga waa ugu dambeyn waa la ogaan doonaa goorta noqotaba qorshe lagu soo saar lahaayna gurdho insha Allah waa la soo bandhigi doonaa laakiin Sofia hadaladeedu waxa kamid ahaa inaysan marnaba sheegin iyadana goobta ay ku sugan tahay gabadha baala intaas kadibna waxa arkaynaa booraan oo la hadlaya Cusmaan waxa uu markaasi ku leeyahay eeyihii Mongooliska ahaa ee jidgooyada waa ay soo socdaan tiradoodana aad iyo aad ay u badan tahay hogaamiye kadibna Cusmaan asagoo dhahaya arkayna inta soo hor istaaga cadawga halkani waa goobtii dagaalka anigana mudana Cusmaan ayaa ahay goobtan ayana taaganahay ninkii odogaan ahaa iyo ciidankiisa Cusmaan ayaaba isoo hor istaagay Cusmaan ciidan yar ayuu markaasi wataa tiradiina aad iyo aad ay u badan tahay ayuu leeyahay laakiin anaga Turkiga ayanu nahay Cusmaan oo sidaas ku booteynay ayaanu arkaynaa cadawgiisna diyaar waa inuu madax ka wada jaro laakiin ciidankiisa aad bay u yaraayeen ciidanka Mongooliskana ma mid loo barbar dhigi kar markaasi olagaana waxa uu diyaar u ahaa markaasi inuu Cusmaan ka hortago markaanina waxay noqon doontaa labadooda markii ugu horeyso
oo ay seef iskala horteegi doonaan sidoo kaleetana markaasi ay is idbin doonaan. Waxa uuna markaasi Cusmaan leeyahay dhulkeena ayaad nagu soo weerarteen, haddiiba anaga dhulkeena aynu nabad kula noolaaninin adiguna lagama yaabo wax raaxa dhulkeena inaad ku heshaan. Anagii dhulkii iska lahaa ayaad weerar nagu soo qaadeen, raaxadii nabadaad noo diideen, idinkana habarteeda ka tahay inaad nabad ku joogtaan ayuu leeyahay. isagoona halkaasi baaruudiisa kusoo diyaarsaday ayaanu arkaynaa. sidoo kale tan ciidanka Mongooliska weerar ku qaadayo casharna meesha uu dhigayo. ninkii lagu magacaabayay Ologaana arrinkaasi aad buu uga xanaaqay, isagoona go'aansada markaasi inuu Cusmaan hadaladiisa ugu dambeeyay ku yiraahdo. waxaana ka mid ahaa hadaladii Ologaan marka Cusmaan kibirkaaga iyo madax adeegaaga marnaba isbedeli maayo. Cusmaan kadib waxa uu leeyahay awowyaasheeda waa ogos ayaana ka soo jeeda, iyagana reer ogos bay ahaayeen, aniguna dhiigooda ayaa iku jiro ayuu leeyahay. madax adeegana iyaga ayaan ka keenay, mana qaadanayo baadilka, waan ka madax adeegaya ayuu leeyahay. intaan qaadan lahaa diyaarna waxaan u waay nooca oo kale inaan la dagaalamo sidii awowyaasheeda ugula dagaalami jireen oo kaleeto. kadibna dagaal ayaa meesha ka bilaabmay sidaanu arkayno. intaas kadibna ciidamada Cusmaan qaar ku ugu muhiimsan waxaad arkaysaa iyagoo faraar markaasi baarka loo wada gelinayo, waxaana u sababa markaasi ninka lagu magacaabo Ologaan, taasoo ka dhigan markaasi Cusmaan la tagay inuu soo dabaaleen, laakiin qorshe mar hore uu soo diyaarsada anagana sidoo kale lagu qiyaanay laga yaabo Cusmaan ciidamadiisa markaasi inay xabadka qoryo ku sitaan oo markaasi isla mar ahaantaasina ka difaacaya markaasi falaaraha nimankan ay soo tuuriyahanayaan. maxaa yeelay ciidamada Cusmaan ku ugu miisan sida Booraan oo kaleeto iyo raggaas iyo waxa arkaynaa markaasi falaar lagu dhufanayo. teeda kale waxaa ninkii labaad xalqadii la soo dhaafada waa ninkii waxa ku jiray Batoorhaan ahaa oo xalqadii hadda la soo dhaafay la waayay. waxaa isdhahaynay ninkan boosdag ma ciilay isdhahayo migsiis dadka ugu dambeeyay inuu soo celiyaan arkaynaa marka xalqadii la soo dhaafana waa ku sugnaa ninka markaas darteed waxa laga yaabaa inuu asaga arrimo qaas oo markaas u bax. marka xalqadan soo socota insha Allah waan ku daawan doonaa. Cusmaan ciidamadiisa isagoo la baabiinayo ayaa waxa uu leeyahay markaasi aniga madaxayga waa la goyn karaa ayuu leeyahay, oo dadku waa u raaricinaya cadawgeyga, laakiin marnaba aniga cadawgeyga markaasi uma jilbi jabsanaya ayuu leeyahay. jilbaana dhulku dhiga habarteeda ka anoo dagaalamaya madax leega jaray ayuu leeyahay. marka ninka Cusmaan lagu magacaabo qofkii wax yar haysto unbaa wax yar qasaaro, qofkii wax badan haystana wax badan ayuu qasaaraa uu waaya. hadalkaasina uu kala jeedo markaasi anigu wax yar haddii aan haysto in yar unbaan qasaaraya, laakiin adiga in badan haddii aad haysto in badan ayaad qasaaraysaa ayuu leeyahay. marka sidaas darteeda goosgoosko waxyaabo markaasi la rabo xalqada dhexdeeda in lagu faahfaahiyo unbaa dadka markaasi si hal xiraal ahaan loogu soo dhigaya, taasoo furfuritaan u baahan. marka Cusmaan iyo kaartidiisa uu la soo bixi doono ayaanu arki doonaa, laakiin goosgooska ama sidaas ayuu asaga ku soo idlaanaya oo ku soo dhamaanaya. Cusmaan oo dhahay qofkii in yar haysto in yar u buu qasaari haddii uu wax weynayo, qofkii in badan haystana in badan u buu qasaari haddii uu wax weynayo. marka goosgooska halkaas aan ku soo idleenaynaa insha Allah. shakhsiyad cusub ayaan wataxanaal ku soo biiri doono gordhow, nin inaga lagu soo dari doona doorkii kala matali doona, laakiin ma sii ogaan kariye insha Allah waa ogaan doona gordhow haddii lagu soo daro. muuqaalka taas ku soo koobay aad iyo aad u mahadsantiin. intaan ku kulmi doono muuqaalkiisa waxaan kaga tagay salaanta salaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.